inka maalmahaasi ka hor warbaahinta iyo raayul caamka dunida la falanqeynayay ciidamada dawladda Mareykanka gaar ahaan kuwa cirka iyo nidaamka Israa'iil ciidamadiisa ayaa weerar ku qaaday meelo kala duwan oo ay ka mid tahay magaalada Tehran subaxaasi waxaa la qaarajiyay ninkan aad hadda arkaysaan waa Ayatullaahi Ali Khamenei ninkii ugu sareeyay ama murshidka wadanka Iiraan ah marka la fiiriyo sida uu u dhisan yahay kacaanka jamhuuriyaddaasi ka jira isaga oo kaliya lama dilin waxaa markaasi la dhaawacay xaaskiisa caruur qoyskiisa ka tirsanayd kuwaasi oo markii dambana xaaskii ay weerarkii dhaawaca ka soo gaaray ay u dhimatay maalintaasi sidoo kale waxaa la dhaawacay ninkan kale aad arkaysaan waa Mujtaba wiilkiisa weyn ee Ali Khamenei oo maanta la wareegay jagadii aabihii hase ahaatee markii xaaladdu ay halkaasi gaartay ninkan oo ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ninkan kale oo ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ka dhaadhiciyay wax aan suuragal ahayn ujeedadana waxay ahayd ninkan Khamenei ee la dilay iyo maamulka xukunkiisa in muddo 3 maalin ah oo kaliya haddii labadan dhinac ay isgarabsadaan oo ciidamadooda adeegsadaan jagada looga tuuri karo laakiin wixii oo dhan waxay noqdeen daan dabagaale riyadii la istusay kaartooyinkii la jeexay wada shaqayntii militariga iyo sirdoonka maanta meeshii meel ka fog ayay jirtaa hase ahaatee saaka dunida sheeko kale oo weyn ayaa u taala waa 10 qodob oo istiraatiijiyadda lagu hagi doono wadanka Iiraan uu soo saaray ninkan oo loo yaqaan hogaamiyaha hooska Mujtaba Khamenei waxana uu leeyahay Mareykanka iyo Israa'iil waa inay ku qasbanaadaan sidaan annaga rabno haddaba waa maxay 10kaas qodob dib baan kaaga sheegi doonaa aan ku soo celiyo mar kale ninkan aad u jeedaan waa Xi Jinping hogaamiyaha wadanka Shiinaha wadan aad u kobcaya marka la fiiriyo military ahaan dhaqaale ahaan tiknoolajiyad ahaan iyo waliba saameyn ahaan adduunka Trump ayay si weyn isku hayaan 14 bishanna waa ay kulmi doonaan maalinta Arbacada ah Trump ayaa duulaya oo Beijing tagaya labada dhinac waxay ka wada hadli doonaan sida dunida iyo qaabashinkeeda ay noqon karayso laakiin isbeddello waaweyn ayaa iman kara iyadoo ay taasi taagan tahay ninkan Netanyahu ah hogaamiyaha Israa'iil labada nin ayuu hadda isku baxsay waxana uu leeyahay Mareykanka iyo Israa'iil in ay Iiraan ka adkaan waayaan ninkan kale ayaa sabab u ah oo Xi Jinping ah waraysigii xalay uu bixiyay ee barnaamijka 60 minutes ee SBS ka baxa oo Mareykan ah ayaa maanta si weyn loo falanqeynaya intaas oo dhan aan ka soo kaxeeyo ninkan kale aad u jeedaan waxa la yiraahdaa Mas'uud Pezeshkian waa hogaamiyaha wadanka Iiraan aan iraahday madaxweynaha dawladda Iiraan ninkan war-saxaafadeed ayuu u gudbiyay telefishinka dawladda waxa uu leeyahay qodobada Trump iyo dawladda Mareykanku ay keeneen waxay ahayd inay isdhiibto dawladda Iiraan laakiin taasi ma dhacday waa maya waa sababta ka dambaysa in hindisiga xalay laga jawaabay ee Iiraan ay dunida si weyn uga qalqashay marka la fiiriyo sida ay wax u socdeen haddaba Khamenei ayaa talin doona waa Mujtaba oo gobolka bariga dhexe maamuli doona haddii 10kan wasaayo ama dardaaran ee siyaasiga ah uu hirgeliyo Netanyahu ayaa qabsan doona sida uu doonayo himilooyinka Israa'iisha waaweyn hirgelin doona Mareykanka ayaa si ahaan doona dawlad weyn oo caalamka ka talisa mase Shiinaha ayaa noqon doona xiddi kale oo Mareykanka booskiisa galaya gobolka bariga dhexe waxa uu qaabeyn doonaa jihada siyaasadda adduunka iyo meesha ay wax aadi doonaan laakiin waayo cidda loo talin doona intaas ayaan rabaa inaan isugu ka xiro barnaamijkan si aad u fahanto yoolasha kala duwan ee caalamka
iyo waliba bartilmaameedyada wadamadan ay doonayaan. intaa markaad isku akhrisato kadib waxaad qaybta hoose ku qori kartaa markaad barnaamijkan isugu ka xiro gobolka bariga dhexe ma ka maarmaya dagaal yaa saadkan doona. soo dhawaada qodobadaas ayaan isugu ka xirayaa barnaamijkan oo aad ka daawanaysaan Barrow Show koob iyo toban ay tahay bisha May sanadka 2026 nala sii jooga si aad wax badan uga heshaan macluumaadkan aan isugu ka xiri doono si aad u fahanto bariga cusub ee bariga dhaxada loolanka uu ka taagan yahay si bari cusub oo kale loogu baxo. waa mahadsantiin. bisha February ee sanadka 2026 adduunka ayay saameyn ku yeesheen. dawlad kastana waxa ay bilowday bal in ay qiimeyn ku samayso halka ay wax ku dhamaan karaan. Mareykanka iyo Israa'iil waxa ay wadeen xisaabo la isku dardaray oo natiijada jawaabaheeda la sii ogyahay. sidaas ayay u filayeen wax kasta inay u dhacayaan. ka hor dagaalkan inta uusan dhicin dib ku celiyo. David Bernie waa hogaamiyaha hay'adda Mossad ee Israa'iil iyo waliba ra'iisul wasaaraha nidaamkaasi Benjamin Netanyahu iyo waliba wasiirkiisa dagaalka Israel Katz ayaa waxa ay si toos ah ula xiriirayeen si istaba jooga oo xitaa safar ay ku jiraan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump hogaamiye u dhagan nugul qorshooyinka Tel Aviv ka imaanaya iyo waliba sheekooyinka ay banaanka keenayeen taas oo ay arkayaan Mareykanku inay ribix iyo faa'iidooyin badan ka heli karaan sida Israa'iil ay wax u waday haddii ay u dhacaan. Trump oo ka maagana kobaca dawladda Iran military ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqdhaqaaqeeda marka la fiiriyo gantaalaha iyo waliba bacriminta uraniumka ayay meel dheer uga gacan haatiyeen iyagoo hoos ka tusay haddii uu tilaabo qaado jawaabo uu si degdeg ah ugu guuleysan karo. damacu rag waa u bale. Trump waxa uu raacay yoolashan loo soo bandhigay isagoo arkay in guul degdeg ah uu gaari karayo. waa sida uu jecel yahay in isaga uu noqdo ninka had iyo jeer guuleysta marka la fiirsado cidda ay isqabtaan. markii ay arrintaa dhaceen Netanyahu iyo David Bernie ayaa Trump u sheegay in haddii la sameeyo qorshooyin saddex ah jiraalka dawladda Iran gaar ahaan nidaamka kacaanku ay xididada u siibi karaan. saddexda arrin waxay ahayd marka ugu horeysa in la abaabulo diyaar garow dagaal oo Israa'iil iyo Mareykanku ay si isku mid ah u fulinayaan. tan labaad waxa uu ahaa weeraradaasi in lagu dhaqaaqo halka qodobka saddexaad oo meesha la keenay uu ahaa in la abuuro kacdoon gudaha ah oo dad fara badan ay isugu soo baxaan magaalooyinka Tehran, Qum, Mashhad, Tibris iyo waliba Karaj iyo deegaano kala duwan oo dhammaantood ku yaala dhulka Iran. intaa laguma simayn oo qorshaha kaartada dagaal ee la dejiyay waxa raacsanaa in la hubeeyo kooxaha Kurdida ah ee wadanka Iran isla markaana hubka la siiyo loo furo wadooyin loo duqeeyo ciidamada Iran ay joogaan kadibna gudaha wadankaasi laga rido qalalaaso. ma taqaanaa ujeedka waxaas oo dhan ay u dhacayaan waa in xukunka laga tuuro wadaadkan duubka xiran Ayatullahi Ali Khamenei nin dhowr iyo 80 sano jir ahaa hal adka birlab ahaa go'aanada wadankiisana isaga ay ka fulayeen. nin ku barbaaray Ruuxullaahi al-Khumeini hoostiisa nin qum wax ku soo bartay isla markaana aad ugu adadka jiritaanka nidaamka kacaanka ee dawladda Iran. sababta ugu weyn ee arrimaha loo sameeyo waxay ahayd haddii hoggaanka dawladda Iran meesha laga saaro micnaheedu inuu yahay waxa loo yaqaanay kacaanka islaamiga ah inay meesha ka bixi doonaan. ciidamada ilaalada kacaanka jamhuuriyadduna ay noqon doonaan mid dhumay iyo mid dhan raacay. macnaheedu waxa uu yahay ciidamadaasi in ay burburi doonaan. kaydadka hubka, uraniumka iyo talada wadankaasi dib in loogu celin doono sidii uu 50 sano ka hor ahaa oo ahaa taabic daba taagan dawladda Mareykanka iyo waliba
jihooyinka reer galbeedka Israa'iilna ay hesho saaxiibkii hore oo ay bari lahaan jirtay oo Iiraan ah waa xilligii boqortooyada Shaah ka hor inta aanay dhidibada u siibin maamulkii boqortooyadaasi dowladii ama kacaankii uu aabaha u ahaa Ruuxullaahi al-Khumayni ninkii isku soo maray dhowr wadan oo kala duwan laga bilaabo Turkiya Ciraaq Faransiiska ilaa uu dib ugu soo laabtay magaalada Tehran iyadoo calankii dowladdaasi la babinayo dadkuna ay sugayaan mar-uun inuu yimaado si uu talada u qaato inta markay ay dhacaan kadib aan dibka ugu soo celiyay wixii la filayay ayay ku dhaqaaqeen 28kii February goor hore oo subaxa xilliga geeska Afrika dunida waxay ka warantay warar degdeg ah waxaa la weeraray Iiraan waxaa la dilay dad fara badan dadka dhintay waxaa ka mid ahaa Khamenei Mareykanka iyo Israa'iil labadooda hogaamiye ayaa isugu yeeray warbaahinta si isku mid ah ayay u sheegeen in weerarkaasi dhacay ujeedadana uu yahay waxaa lagu tilmaamay regime change ama in la bedelo wadankaasi jiritaankiisa nidaam ee kacaanka haddaba maxaa dhacay xisaabihii la isku soo dardarsaday ee natiijadooda meesha taalay waxa ay noqotay mid si qalada loo xisaabiyay dowladda Iiraan oo markii horeba dhistay afkaaraha dadka lakabyada dowladnimada iyo laba raac oo ama saddex raac oo isxigtay ayaa noqotay qof markii uu dhintaba si degdeg ah inay u bedesho kadibna waxa ay si ba'an oo aan la maqalana arag ay u garaaceen saldhigyada Mareykanka ciidamadii Trump waxa ku adkaaday in ay xaaladii ay filayeen mooyaane wax kale ay arkaan Israa'iil xitaa waxa la gaaray Trump iyo Netanyahu inay eedeeyaan si hoose oo Netanyahu lagu yiraahdo wax aydan hubin ayaad lugaha inoo geliseen iyadoo dagaalka uu socdo oo maalinta ka dambaysa dowladda Iiraan ay ciyaarta dhinac kale u bedelayso oo wadamadii Carabta meel walba oo kamid ah ay ka dhaceen duqeymo saldhigyada Mareykanka ee gobolka bariga dhexe madaxa kor loo qaadi lahayd dhibaatooyinkaas oo dhami ay dhaceen ayaa 8 bishan aynu ka soo gudubnay Trump waxa uu ku dhawaaqay April in dagaalka si kumeel gaar ah 2 isbuuc loo joojiyay oo magaalada Islamabad loo aadi doono wada hadal waxa uu soo diray madaxweyne ku xigeenkiisa wiilka uu sodogga u yahay iyo waliba ninka bariga dhexe u qaabilsan halka Iiraan ay direen rag ay kamid yihiin Maxamed Baaqir Qaalibaaf afayeenka baarlamaanka iyo waliba wasiirka muraha dibadda wadanka Iiraan Cabbaas Araghchi wada hadaladii ma noqon sidii la filayay waa lagu kala tagay xalay ayay mar kale dowladda Iiraan waxa ay dirtay dhambaal la yaab lahaa taas oo dunida aad uga xanaajiyay marka la fiiriyo Trump sida uu hadlay Netanyahu maanta xitaa meelo kala duwan oo caasha galiyay hase ahaatee qabiir sare oo ka tirsan telefishinka 13aad ee Israa'iil ee la yiraahdo Raviv Trager waxa uu leeyahay markii horeba qalad istiraatiijiyadeed ayaa la sameeyay haddana qaladkii ayaa mid kale lagu saxayaa Netanyahu iyo Trump maalinba maysan helin guul wanaagsan qaladka ugu weyn ee la gala waxay ahayd in la weeraro halka loo yaqaan Majmac al-Murshid al-A'la goobta uu deganaa hogaamiyey sare Iiraan Ali Khamenei la dilo maalintaasi ayuu dagaalka fashilmay waana maalintii Iiraan ay isku tageen oo ay is aruursadeen oo ay sharafkooda difaaceen sidaa daraadeed maanta Trumpna waa jahwareersan yahay Israa'iilna waa jahwareersantahay ayuu leeyahay iska dhaafe maalintaasi waxay dhacay maanta ayay ka daran tahay oo shalay nuclear ayaa lagu gorgortamayay dagaalka 12 maalin ee gantaalaha Iiraan ayaa lagu dara culayska Iiraan la saaray inay joojiso maanta se waa ka gudubtay marinka Hormuz ayay Iiraan sheeganaysaa marka yaa qaldan dagaal kasta oo la gala Iiraan waxay helaysaa faa'iidooyin xoog leh halka tilaab kasta oo la qaado Mareykanka iyo Israa'iil ay wajahayaan dib u dhac xisaabaadka ay isku darsadeen Mareykanka iyo Israa'iil waxa sidoo kale fashiliyay ninkan waxa uu noqday aktarka qarsoon ee dagaalka bariga dhexe
ninkan oo xisbiga AK Party ka tirsan hogaamiyaha wadanka Turkiga ah waa nin aysan ka qaldamin isugeynta iyo kala jarka siyaasadeed iyo waliba ciyaaraha diblomaasiga maadaama uu NATO ka tirsan yahay. Trump ayuu saaray cadaadis hal taleefan oo wacayna waxay burburisay kaartadii Israa'iil ee Mareykanka laga gaday waxaana ay ahayd in ciidamadii Kurdiyiinta la abaabulo oo hub la siiyo. waxa uu ku yiri wadan kamida NATO ayaa dhibaato wajahaya haddii Kurdida hub loo dhiibo, sidaas darteed Turkiga waxa uu garab siin doonaa Iran. jiritaanka nidaamka kacaankana waan garab taaganahay. Mareykanka marka laba daran mid dooro ayuu dhaxda u istaagay. ma Turkiga oo gobolka bariga dhexe ugu awood badan gaashaanbuurta NATO ka tirsan ilbax ah aad kuugu dhow ayaa dayacdaa oo ma Israa'iil ayaad qaadataa mase Iran ayaa burburisaa oo talada Israa'iil ayaa meermaraysa. dhammaan arrimahaasi waa waxa ay hadda wax la socolayeen Iran ay guusha u hayso. waan filayaa qodobkaas in uu meel kaaga xiran yahay oo aad fahmi karayso cidda ku dagaalamaysa Iran gudaheeda marka gobolka bariga dhexe la jooga. yaa adkaanaya Turkiga iyo waliba Israa'iil. labada marka ay soo kala adkaadaan ayuu nidaamkan burburayaa. aan si kale kugu gadiyay shilanka. ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxa uu ogaaday cidda arrintan Turkiga ku gacan siinaysa inay tahay ninkan odaga ah. ninkan waxa la yiraahdaa Xi Jinping ma kaftamo. waa hogaamiyaha wadanka Shiinaha. ninkan waa ninka hadda ciyaarta hadba dhinac u bedelaya. isaga iyo Netanyahu isma hayaan, laakiin ninkan kale ayay ishayaan waa Trump. labadooda waxay isku haystaan kaliya bariga dhexe maaha ee waa cidda dunida qaameyn doonta, maamuli doonta, isla markaana sheekooyinkeeda iyo aragtideeda ay ka soconayso. Trump markuu arkay in wax kasta ay ku adkaanayaan ciyaarta gobolka bariga dhaxana uu ku fashilmayo, xalayna dawladda Iran ay soo saartay dhambaal laga fakaray 14 bishan Beijing ayuu iska xaadirinayaa. waxa ugu badan ee laga hadli doono waa arrinta Iran iyo Mareykanka si aanu u lumin jiritaankiisa iyo horumarkiisa iyo awoodiisa caalamka. sidaas darteed ninka Netanyahu ah labada nin ayuu istusayaa si Turkiga meel cidla u soo istaago kadibna Trump looga soo furfuro. laakiin taas oo dhan ma dhacayaan oo sheekada actorkan kale ayaa dhinac uga jira. waxa la yiraahdaa Vladimir Putin. waa nin aad u ceelan oo reer galbeedka u qabay ciil uu doonaya inuu kaga aarsado wixii ku dhacay dagaalkii Ukraine ee wadamada Yurub iyo Mareykanku ay hub ku siiyeen ninkan dhalinyarada ah ee majaajilista ahaan jiray Zelensky. hadda si isku bedelaya actor weyn oo ciyaareed oo dawlad weyn bariga uga aadan wadamada NATO. ciyaarahan dhan ayaa isku xirmaya, laakiin ma taqaanaa sababta loo dagaalamayo oo la isku haysto ujeedooyinkana ay u taagan yihiin. waa sidii loo maamuli lahaa kheyraadka nimankan qamiisyada wata ay hogaaminayaan carabta. nimankan ayay waxay haystaan shidaalka ugu badan ee caalamka. waa niman akhniya ah ama dhaqaale fara badan haysta, laakiin aan haysan tabar ay isku difaacaan. cidda iyaga u dhawaata ayaa noqonaysa cidda adduunka ka talinaysa. laakiin sidaas oo ay tahay iyagu waxay doonayaan inay nabad helaan. inta wadaadkan Khamenei ah aanu gantaalaha la dhicin waxa ay doonayaan nabad ka dhalata wadanka Pakistan. maanta markaan dib ugu laabto dalka Iran, Mujtaba Khamenei waxa uu soo saaray 10 dardaaran. waxa kamid ah ciidamada wadankiisu in ay heegan ahaadaan. marinka Hormuz in laga heli doono dhaqaale badan wadankaasna isaga uu leeyahay, shalana uu si qaldan u dayacay. waxa uu soo saaray wadamada dariska ah in nabad lagula dhaqmayo haddii saldhigyada Mareykanku ay ku yaalaana aan la cafi doonin. inta markii aad fahantay dooda bariga dhexe ka taagan waa on inta waxa la isku hayana oo la dagaalamayo oo gacanta la isku hayo oo gantaalaha ay u dhacayaan waxay tahay dhaqaalaha nimanka aad u jeedaan waa carabta yaa maamuli doona.
ninka soo guulaysta ayaa iyagoo imaan doona, kan dagaalka lagu soo qaadana iyaga ayuu dili doonaa. iyaguna waxay noqon doonaan inay taleefano diraan. hase ahaatee cashir baa ku jira laga baran karo. adiga aan ku weydiiyey yaa guulaysan doona. ma mahadsantahay.